oo dad cawdo ma aha beesha hawiye waxaan rabnaa inaan ka hadalno dhibaatada iyo dhibka ay beesha nimanka la yiraahdo Mirifle ay ku hayaan beelaha hawiye ee degan gobolka Shabeellaha Hoose. Annagu hawiyana la yiraahdaa shalay Shabeelle state ayaa noo dhisneed abaabulkeeda aan ku jirnay ayaga Mirifle noola yimid in aan wax isku darsano wixii aan isku darsanay shalay ee aan isku ogeynay ayaga ka baxay taasina waxa ku cadeey karo 27 wasiir ayay leedahay koonfur galbeed 27 wasiir wasiirada ayaga Mirifle waa A iyo B kuwa kalena waa duurjoog iyo dhuljoog iyo ugaar fiiris iyo meel aan loo joogin Mirifle marka annaga maadaama ay ka baxeen wixii aan ogeyn in aan wax isku darsano saakay hadii ayaga ay ka baxeen annagana waa ka baxnay wax shaqaahan ku leenahayna malaha saakay ninkeena annaga hadii ay xiraan waxaan u aragnaa afduub wax maamulaho ayaga ka shaqeeya ama ay sal ay ku leeyihiin annaga wax shaqaan ku leenahay malaha wax canshuur ay noo soo dooni karaan malaha wax canshuur ay naga qaadi karaan malaha ninkeena hadii xiraan waa niman ay afduubteen waana la dagaalayna waxaan kale u sheegaynaa annagu hawiyana la yiraahdo hawiye hadii waa maroodi hadii biyo loo diidana waa caba hadii la siiyana waa caba saakay waxaan sheegaynaa annagoo bahweynta beelaha hawiye ah ee halkan wada fadhino waxaan u sheegaynaa in caalamka iyo adduunka iyo dawladaha federaalka in aan wax maamul ah ee Mirifle iyo koonfur galbeed iyo lafta gareen inaan wax shaqo aan ku lahayn aan ka madax banaanahay wax canshuurana aysan naga qaadi karin ninkeenaasan xiri karin maamulkoodana aynu naga dhex shaqay karin saakay hadii ay inay annaga ay dhici karaan ama ay yeeli karaan saakay waxaan ka rabnaa inay soo duulaan ay annaga qabsadaan hadii annaga qabsan karaan ama waaraad nagu rari karaan waxaan idin sheegaynaa Mirifle annaga wax naga dhaxeeyo ma leh wax naga dhaxeeyo saakay laga bilaabo bisha 10 2021 maamul koonfur galbeed wax la yiraahdo oo annaga agteena ka shaqeynaya gibi ahaanba ma jiro wax ay magacaabaan iska daaya wax ninkeena xataa de saakay ay xiraan waxaan u aragnaa in qafkeena la afduubtay waana ka dagaali doonaa insha Allah hadii Allah awood la ogolaado waxaan kaloon u sheegaynaa in gudoomiyaha degmada sab 10 maalmood aanan macnaha aanan magacaawnen saakay waraaq ka soo baxday xafiiskiisa waxaan u aragnaa inay fariin tahay aysan ahayn maskax ka timid gudoomiye degmo arintaas fariinta oo neesoo diray nimanka Mirifle ee gobolka koonfur galbeedna fariinta aad noo soo dirteen waa aragnay waana ku mahadsantihiin waxay keentaan